السلام عليكم. noloshan casriga ah waxaa caado joogto ah noqotay in qofku boqolaal fikir ay maalintii ku soo dhacaan. Boqol shay baad rabtaa inaad qabato. Intaasoo shay baad akhriyaysa ama aad arkaysa ama aad maqlaysa ama aad dhegaysanaysa. Marka qaar waxaa dhacdaba in shay aad maanta doonaysay inaad qabato inaad ilowdo. Maskaxdaadana uu ka baxo. Maskaxdaada jaamka iyo buuqa faraha badan ee haysta awgeed. Muuqaalkan isaga waxaan kugu tilmaami doonaa xirfadan odhan karo waa xirfadaha ugu muhiimsan ee yaryar laakiin raadka weyn qofka kaga tagay. Waa xirfad noloshaada ku habaynaysa oo tartiibinta noloshaada iyo wax walba inaad halkeedii aad dhigto oo aanad ku ilaabin mid walbana waqtigiisa wax ka badan aanad sin ka saacidaysa ayaan ka tusi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Tawaasho wanaagsan. xirfaddan maanta ka hadlay muuqaalkan isaga waa xirfadda loo yaqaan journaling. Journaling haddaan soo dhaweeyo waa qoritaanka maalinlahaaga. Fikradda hadda sida ugu dhawaan kugu sheego waa in maalintaada aad qorto. Waa inaad maalintaadu ay kaaga duwanaataa maalmihii kale adgo qoray. Waa in qofku subaxa hore markuu soo tooso ama habeenkii marka waxa uu soo seexanayo maalintiisii iyo dhacdooyinkii ugu waaweyn ee muhiimka ah iyo arrimaha uu rabo inaanu ilaabin inuu meel ku qorto si maalinta ku xigta uu halka uga sii anbaqaado. xirfaddan iyada cid waliba u baahantay. Ardayga u baahan ninka ganacsada ah u baahan ninka hogaamiyaha ah u baahan ninka sheekha ah u baahan ninka macallinka ah u baahan cid waliba way u baahan tahay si noloshiisa qofkaas uu tartiibiyo. xirfaddan iyo sida loo hormariyo ayaan wax badan ka tusi doonaa ka faa'iideysi fiican. Waa marka ugu horeysaba haddii aad doonayso inaad xirfaddan iyada aad bilowdo halka ugu hooseysan kaaga soo qabanay waxaad u baahantahay buug iyo qalin meel walba aad ka soo iibsan kartaa. buug weyn hooda buug yar weyn si ugu yaraan sanadka xusuus qorkiisii hal buug oo kaliya uu kugu soo ururo. intaa markaan ka imaado maalin walba wixii dhacay ayaad meel ku qoraysaa. waxaasi ama ha noqdaan wax fiican ama ha noqdaan wax xun. waxa muhiim ah oo qodobka ku sii xiga inaad ku dadaasho in waxaad qoraysaa aanu badan si arrintan ay u noqoto caado iyo dhaqan fudud oo aad maalin walba aad qabatid ama aad ku soo celcelisid. ugu dambeyn jadwal diyaarso maalintii halka aad fadhiisanaysid iyo waqtiga aad u fadhiisanaysid qoritaanka maalintaada iyadaan meel ku astee. intaas ayaa kaa saacidaysa. buug soo iibso. buugga aad ku qoraysid maalintaada waqtiga iyo halka iyo meesha aad wax ku qoraysidna astee oo waxa ay calaamadso. waxaad qoraysaana ha noqdo wax yar oo kooban si aanay maskaxda uga daalin caado aad ka guurtana sida boqolaalkii caadaad hore uga guurtay aanu noqon. intaas waa bilowga. intaad dad fahamtay wax badan oo ku sii sahlayna waan kugu sii xigsiinayay. maxay muhiimad leedahay inaan wax qoraa? inaan maalinteeda qoraa muhiim baa. awalba sooniga aan waxba soo qori jirin haddana iska nool. halkii muhiimka ka tahay baan kaa tusaya. waa marka koobaad inaad maalintaada aad qorto waxay kaa saacidaysaa inaad dib aad u raacdo horumarkaagii. haddaad luqad baranaysid, haddaad arday tahay, haddaad ganacsada tahay, haddaad zawj aad tahay, haddaad zawjad aad tahay, wax alaale waxaad doonto noqo in aad maalintaada qorto waxay kaa saacidaysaa inaad ogaan karto saad shalay ahayd, waxaad shalay ka cabinaysay, dhibaatooyinkii shalay ku haystay iyo habka iyo halkaad maanta taagan tahay iyo sidaad uga kortay iyo wixii aad uga badisay mashaakilkii ku soo maray iyo xalkii dawadii aad u heshay dhibaatooyinkii badnaa ee ku haystay. waxyaalahaasoo dhan baad buuggaaga ka dhex akhrisan kartaa. oo haddaad sanad dib aad u noqoto wixii aad qoraysay runtii halka taagneed markaad aragto ilaahay baad u mahadnaqaysaa. dhibaatooyin badan kusoo dhaafiyey isla sidoo kalena wax badan waxay kuu kordhiyey oo noloshana. marka halka waxaad ka faa'iidaysaa horumarka noloshaada waxaad ku dhex raaci kartaa buuggan isaga ah. qodob kale oo muhiim ah ka mid ah faa'iidooyinkeedu waxaa ka mid ah waxaa nagu jira dareemo fara badan cadho farxad murugo walwal walbahaar. waxyaalahaas inta badan ma aha wuxuu qofku muujiyo. inta badan waxaynu ku dadaalnaa inaan cabudhino si aanay dadku u arag farxadeenna dhibaatadeenna murugadeenna naxdinteen arrimaha noocaas. buuggan wuxuu noqonayaa markaad meel aad ku nafisto waxaad ku qoraysaa waxyaalaha ku murugo gelinaya iyo sidii loo daweyn lahaa, waxyaalaha ku farxad gelinaya iyo sidii aad u badin lahayd. markaad maalin walba aad qorto maalintaada iyo dareenkaad dareensantay iyo fikirka kugu soo dhaca iyo xusuusta wanaagsan ee inaad reebto waxyaalahaas oo dhan markaad aragto arrintaa waxaad ka saacidaysaa nafis baad dareemaysaa. runtii nafis baad dareemaysaa. qofka yaqaano mooyaane qof kalena runtii arrintaa uma sifayn karo. marka waxaad ku dadaalaysaa ood arrintan u samaynaysaa si aad nafis aad ugu dareento dareemadii jirkaaga aad ku cabudhinaysay. intaa markaan ka imaado qodobka ugu muhiimsan waxa weeye in afkaarta kugu soo dhacda aad kala habayso oo siday u kala horreeyaan aad u kala horreysiiso. buuggan iyo qoraalkiisa ayaa lagu helaa. marka haddii aad tahay qof mar walba qoro maalintiisa waxaad tahay qof habaysan runtii. يعني waxaad garanaysaa halkaad ku socoto waxaad garanaysaa halkaad ka timid waxaad garanaysaa waxaad ku xuntay waxaad garanaysaa waxaad ku fiican tahay
waxaad garanaysaa waxaad ku xuntay sidaad isaga ilaalin lahayd dabadeedna noloshaadi oo dhan waxay noqonaysaa mid tartiibsan bay noqonaysaa ugu dambeyn maadaama aynu ka hadalnay habka wax loo qoraayo aan ku tuso uun maxaa la qoraa kow waxaa la qoraa dhacdooyinka farxadda leh ee aad jeceshay inay ku waarto si aad mar walba ugu soo celceliso noloshaadu noqoto mid habiya marka haddaad ahayd maanta mid faraxsan talo waayo maxaad u faraxsanayd buuggaaga yar ku qor waxaad u badan tahay inaad hadhow ku celcelin doontay isla sidoo kale waxaad qoraysaa dhacdooyinka naxdinta leh xumaanta leh guuldarradaada waxyaalahaad ku fashilantay arrintaasina waxay kaa saacidaysaa in hadhow iyo waqti dambe oo kale in aad iska ilaaliso de wixii aad ku fashilantay iyadana arrintaasi way kaa saacidaysaa waxaad isla sidoo kale aad qoraysaa maanta maxaa dhacay tusaale ahaan oo kale meel baad tagtay safar baad gashay cunto cusub baad cuntay dhar cusub baad soo iibsatay qof cusub baad la kulantay waxyaalahaana meel baa lagu qortaa maalintaada waxaa dhacday waxay noqon kartaa war xiise leh waxay noqon kartaa xusuus aan la ilaabi karin wanaaggeeda iyo xumaanteedaba waxay noqon kartaa fikrad fiican oo kugu soo dhacday u baahan in la hormariyo intaana meel baad ku qoraysaa saddexda arrin haddaad qorto maalintaada si fiican baad u dhammaystirtay maxaa si fiican u dhammaystirmada ku guulaysatay waa kow iyo sababtii aad ku heshay laba maxaa si xun u dhacay ama dhibaatooyin kugu dhacay oo aanad ku guulaysan ama aad ku guuldaraysatay iyo sidaad hadhow isaga ilaalin karta saddex maanta si guud ahaana maxaa dhacay taasina marka waa afkaartaadii iyo waxyaalihii maskaxdaada kusoo dhacayay iyo xusuustaadii iyo arrimahaas marka saddexda arrin haddaad qorto waxa weeye xusuus qorkaaga uu dhammaystiray ugu dambeyn tulayn baan ku siinayaa waa kow buug caadiya inaad ku qorto ayaa fiican buugga caadiga marka intaad kombiyuutarka ku qori lahayd waayi lahayd buugga caadiya taaganaysid durqadiisa aad urinaysid oo jaqafta qalinkaaga aad maqlaysid kaa kow ku qoro waa qodobka labaad waxaan adiga qoranaya uma baahnid in far qurux badan aad ku qorto uma baahnid in hab iyo hanaan qurux badan iyo tacbiir iyo odhaah wanaagsan aad ku qortid naftaada u qoraysaa sidaad naftaada hadhow aad ku fahmi karto ayaad ku qoraysaa iyaduna waa qodob kale oo muhiima waxaad ku dadaalaysaa in mararka qaar aanay naftu doonayn baa jirta waxba ha ku qasbin hal mar maalintii qor haddii naftu ay kasoo istaagto iska daa haddii laakiin ay jeclaysato kuwad oo joogtee ugu dambeyn si waxaan ugu qurux badnaado u wanaagsanaado waxaad fiican inaad aad samaysatid maalin kasta tijaabooyin cusub yacni cunto cusub shaax cusub maqaaxi cusub buug cusub dad cusub cibaado cusub yacni waxyaalo cusub oo aad awal aanad samayn jirin inaad samaysay iyada lafteeduna way wanaagsantay si aad buuggaaga hadhow aad ugu qorto waxaan rajaynayaa xirfaddan iyada haddii aad sideeda aad u dabaqdo kolley iyada hadhow wax ku bari doonto maalinta ka dambe waxbaad sii baran doontaa in wax badan aad faa'iidayso noloshaaduna halkii ay taagnayd hore inaanay dib u taagnaanayn intaan ku kulmayna muuqaalkan xiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaanan ka bixin asxaabteeda la wadaag muuqaalkan isagaas ay dad badan u gaadho fariin wanaagsan xagga hoose ugu tag arrintaasina waxa way dardar gelinaysaa muuqaalkan dad badan u gaadho wali wanaagsan